madaxweynihii hore ee dawladda Puntland Duli Maxamed Cali Gaas ayaa si kulul uga hadlay khilaafka ka dhex aroosan qaar ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya. Duli Maxamed Cali Gaas oo waraysi siinayay idaacadda Kulmiye ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya laga doonayo inay tixgeliso hanaanka dawlad goboleedyada ay ku shaqeeyaan. waxa uu sheegay in khilaafka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada badana uu ka yimaado dana gaar ah oo dhanka dawladda federaalka asagoona sheegay in arrimaha dastuurka ay baalmaraan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. ugu dambeyn madaxweynihii hore ee Puntland Duli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay in dawlad goboleedyadu inay dhistaan madal ay ku midaysan yihiin isla markaasna ay ka wada hadlaan xaaladda ka jirta dalka sida waxyaabaha ay isku hayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. waa xasantahay adeer Cabdulani waana salaamaya bahda Kulmiye iyo inta kale dhageysanaysa. waxa weeye buugani adeer wuxuu ku saabsan yahay waqtigii aan dalka ka ahaa wasaaraha waxyaabihii transitionka ama se caqabadihii in laga baxo ku meel gaarnimada oo dawlad taama la noqdo wixii dhacayay oo faahfaahsan oo talaabooyinkii la qaadayay sidii ay hawshaasi u dhacday iyo challengeski tirada badnaay oo abaarihiina soo maray 2011 majaacada ugu xumay dalka 60 sano soo maray يعني كمبالا كود iyo wixii ka dhacay iyo waxa soo dhan ka hadlaya buugu dhanna sidoo kale yani aniga tarmoodkayga xataa uu ka hadlaya wuxuu kaloo ka hadlaya Soomaaliya guud ahaan brief history-geeda taariikhdeeda waxay soo martay laakiin intaha ugu weyn buugu xabaasiyaha waxa weeye 2012 wixii dhacayay oo dawladda loo soo dhisay baarlamaanka si loo soo xulay dastuurka dhamaystirkiisii waxaas oo dhan buu ka hadlaya buugu aad yani waxyaabo badan buu taabanaya. waayahay si gaara halkaad uga hadashay isbedelkii dalka ka dhacay gaar ahaan waqtigii ku meel gaarka laga saaray adigu ra'iisul wasaaraha aad ahayd doorashadii dhacday halkaas sharaxaad kooban naga si gaar markii aad la kulantay madaxweynihii xilligaasi la doortay Xasan Sheekh Maxamuud ka hor inta aysan doorashadu dhicinayo. Xasan Sheekh Maxamuud waan kulanay wixii aan isdhaafsanayna dan waxa weeye dad yani siyaasiyiin oo wada hadlayo oo maaragtay raba inay iskaashi yeeshaan oo ay yani bay ahayd madaxweynuhu waqtiga isaga uu yimid wuxuu codsaday inaan u tanaasulo isaga laakiin ma aysan suurtagelin laakiin taas hadda beside the point waxyaaba anecdotes yar oo ku jira buugga ka mid ah ujeedada buugga intaas maaha waana ku faraxsanahay inuu madaxweyne noqday oo wadanka taladiisa qabta 2012 wuxuu dalka qabtayna waa ku maadsan yahay wuxuu khaldayna bini aadan baa leeyahay oo walba waxa khaldi karaa hal iyo labo caqabadaha ku muuqday waqtiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya aad ahayd ee dawladda ku meel gaarka ahayd maanta aad isleedahay bulshadu inay wax ka bartaan way tahay maxaad noo sheegi kartaa? waxa weeye horta waxa loo baahan yahay qof hadii yani arrin dib badan ama ha noqoto abaartiisa ula tacaalay ama ha noqoto dastuurka dalka si loo qoray ama ha noqoto doorashada si loo weergashay doorashada ugu horeysa dalka lagu qabtay ahay gudihiisa kadib xor ah kadib 69 doorashadii u dambeysay ee dalka ka dhacday bishii March waxa weeye laba arrimood baa raba qofka meesha jooga inuu la yimaado mid waxa weeye in wax uu qabanaya uu daacad ka yahay aysan wax kale aysan isaga ugu qarsoonayn oo uusan lahayn aad ku gaartid ujeedo gaar ah iyo dadaal moogtahay marka haddii niyad saalaxa iyo dadaal la yimaado waxaan aaminsanahay in wax badan ay fudaanayaan oo ilaahayna uu fududeynayo waxaan aaminsanahay marwalba meesha wax ka khaldamayaan waxa weeye in marka qaarkood niyaduna aysan fiicnayn dadaalkii loo baahnaan aan nala imaanaynin example waxaan u soo qaatay inuu marar badan dastuurka annagu waxaan ku dhammaystirnay waxaan bilownay bishii February guddiga waxaan magacaabay bishii September 19keedii 2011
draaftkii horeeyana waxaan dhamaystirnay bishii February 2012 draaftkii u dambeeyay final draaftiina waxaan sameynay bishii April 20keedii 2012 kabacdina waxaan ku ansixinay xamar 825 qof aan soo keenay loo jeedo constitutional assembly-ga kiibana ilaa hadda lagu shaqeynaya marka waxaan fahmi karin lahayn waxa weeye dhowr iyo toban maaragtay article ama 150 article sida ay u qaadanayso haddana 2012 August waxa ka soo wartay 7 sano iyo ka badan marka wali inuu meeshiisa taagan yahay waa nasiib darro marka maxay muujinaysaa yani it's how difficult يعني intee la eg weeye in la qoro dastuur ka kooban wax ka yar 200 oo mataqaana article waxay ila tahay inaan waxaan daacad laga ahayn waxay ila tahay inaysan niyad wanaag u soo jirin dastuurka u dhamaystirmo ma fahmi karo runtii daa weydiiso walaa ma fahmi karinin sababta u dhici karto in waqtigaas intaas kala dastuurku qaato xeebaan aan kaadiga ka mid waxa laga yaabaa dadka qaar ay fakaraan yiraahdaan dastuurka dhamaystirkiisu adiga ku shaqeynayo ama se maslaxadaada ka tarjumi mayo saas daraaddeed wax doon ay ugu jirtay ma jirtay uu dhamaystirmo marka taasa ka mid waxa ka mid ah xoreynta dalka dee waxa rabaa in la yiraahdo shaqo la yimaado waqtiga anagu aan joognay waxa magaalooyinka waaweyn waqtigaas la xoreeyay ama noqoto Balcad ama Jowhar Marka Beledweyne Kismaayo Baydhabo waxa soo dhan marka waxa la rabaa meeshii la taagan tahay wali dadkii sidii ugu haystaan shabaabkii waxa ka soo rotay 10 sano iyo ku dhawaad marka أنا أعرف إن نيت عنا أي سجلين بدالك لو بحرارة الجانب المدة وحكي لو مش مستيح مثلا waan gartay dib xoreynta marka laga soo tago si gaar ah qodobkan dastuurka marka laga hadlayo ma la oran karaa caqabadaha dastuurka hortaagan waxa kamid ah maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isfaham ay yeeshaan ayaa hortaagan in dastuurka si guud loo ansixiyo dowladda dhexe oo federaalka iyo dowladweynaha waa isqabanayaan mararka qaarkood waxa la isku qabanayaa maslaxadda guud ee dalka laakiin ma aha in mar walbaaba ay dagaalsan yihiin wixii la isku hayo waa in laga heshiiyo talaba fariisto laga heshiiyo weeye laakiin taasi ma hortaagnaan karto in lagu heshiiyo dastuurka actually darunta kuu sheego dowlad goboleedyada danbaa ugu jirta dastuurka uu dhammaystirmo waana in ay arintaasi wixii kaga aadan ay ka sameeyaan laakiin maxaa la yiraahdaa ma noqon karto caqabad hortaagan ma noqon karto waxa la leeyahay waa bilow weeye dowladda in badan baa heshiis lahayo la wada shaqeynayay ma garatay marka waxa loo baahan yahay in sharcigaasi la dhamaystiro dastuurka laguna dhaqmo fiiri waxa moogtahay haddaan lagu dhaqmaynin waxyaabaha la isku hayo badana ama dowladda waxa weeye waa dastuurka qodobo ka mida weeye marka waxaa la rabaa in letter and spirit waxaa la rabaa si macnawiya iyo si maadiya labadaba in loogu dhaqmo dastuurka baa la rabaa dowladdu ay ilaaliyaan wixii kaga aadan dowladda dhexna ilaaliso wixii kaga aadan haddii kaas lagu heshiiyo heshiiskaas bulshada dastuurka heshiis bulsho weeye markii lagu heshiiyo say tahayna loo hirgeliyo waxay isqabadi ma imaanayo awooduhu waa qaybsan yihiin mas-uuliyaduna waa qaybsan yihiin waayahay marka adigu hadda marka laga soo tago buugga aad qortay ma kaga hadashay buugga qorshahaaga siyaasadeed ee soo socda iyo halka ay ku dambeysay markii u dambeysay madaxweynaha Puntland aad ahayd madashii aad samayseen amaba waraad ka tarteen waxa qayb ka ahayd inaad sameeynaysan xisbi siyaasadeed adigii madaxweynaha shirkadda maamul goboleedyada laba sida buugga waxa ka hadlayo buugga ka hadlaya taariikhdaas ka hadlaya tudac u dambeeyay ku dambeeyay wuxuu ka hadlayaa waqtiga iyada si aan u arkayay the way forward meesha loo socon karo laakiin aniga hal siyaasad anigu aan leeyahay buug kaga hadlimayo taasoo taa weeye mid kale xisbiga anigu aan sameeyay xisbiga uu jira xisbiga waxa la yiraahdaa National Progressive Party ama xisbiga horusocod qaran wada waan ku sameeyay bishii October kamid dowlad goboleedyada inta badan way ku jiraan madaxduna waa kamid mas-uuliyiin kala badanina waa kamid marka
waqtigii aan beerayna waxaan jecelnahay inaan la sameeyo xisbi conventionkiisi amase isu imaatinkiisii iyo in laisaga yimaado insha allah. ma qorshaynaysaan marka in muqdisho aad timaadaan oo diiwaangelinta iyo howlaha kale xisbiga aad dhamaystirtaan si aad xisbiyada siyaasadeed dalka uga mid noqotaan? maxaa diidayaa caasimadii dalka weeye waan imaanaynaa. xisbiguna maaha keliya xamar, kismaayaa la geynayaa, baa la geynayaa, jowhar baa la geynayaa, nusare baa la geynayaa, garow baa la geynayaa. meel walba oo Soomaali joogto xisbigu inuu xisbi qaran noqdaa, xisbi reer iyo xisbi gobol iyo xisbi shakhsi inuusan noqon baan rabaa. waan gartay. aniga soo koobi doona maalmihii u dambeeyey si guud waad la socotay xaaladda siyaasadeed ee dalka, si gaara doorashadii ka dhacday Jubbaland dawladda mowqif ay ka qaadatay iyo sida galmudug xilligan loo wajahayo iyo khilaafka goboleedyada weli taagan oo adigu aad wax ka ogeyd, iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo lagu waramayo in laga hor istaagay in Kismaayo u duul. arrimahaasi oo dhan maxaad ka leedahay? tan dambaysadaan ku hormaro Sheekh Shariif aniga madaxweynihii magacaabay weeye, madaxweynihii dalka weeye. wanaag badan anu baa shakhsiyan u hayaa aad u tira badan. runtii mas-uul Soomaaliyeedu aad u wanaagsan weeye sheekhu, liidar dhabana ah. marka waana madaxweynihii dalka, sharaftii dalku buu ahaa, sharafta dalku huwan yahay. waxaan aaminsanahay marka in ixtiraamka u mudan yaha la siiyo, in laga hor istaago meeluu aadayay diyaaradu raacayeen. anigu waana si daran u arkaa, wax saxana maaha. waxaan u arkaa ay tahay arrin aad iyo aad u khaldan. haddii sida la sheegaya anigu macluumaadka oo dhabta ma hayo. hadalkiisii un baan raacayaa uu ka yiri TV-yada iyo mataqaana press conference-kiisii un baan u raacayaa. marka saas wax u dhaceen waxay la tahay anigana si bara inay ahayd. taasi taa weeye. anigu waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyadu inay madal yeeshaan, ay isugu yimaadaan, danahooda kaga hadlaan. maaha in ujeedadeedu in dowladda dhexe lagu xumaynayo, maaha in awoodihii dowladda la qaadanayo oo la xoogayo. anigu waxaan u arkayay markaa una arkayna dhammaantay intii markaa joogtay inay tahay muhiim. dastuurkana inay ku qoran tahay inay la yeesho, madal ay yeeshaan oo isu yimaadaan. adduunkana waa ka jirtaan meel walba uu ka jiro waxa la yidhaahdo nidaamkan federaalka. marka waxaan arkaa inay dib isugu yimaadaan, wixii ka khaldamayna ay saxaan. sababtoo ah waa isku dan weeye moogtahay. markii la eego awood qaybsiga iyo khayraad qaybsiga iyo mas-uuliyad qaybsiga markii la eego dowlad goboleedyadu waa isku dan weeye. marka waxaa la rabaa in qof kaligii si gaari karaana ma jiro. marka waxaa loo baahan yahay isu yimaadaan, noloshoodana ay boorka ka jafaan oo si fiican ay mataqaana u geliyaan. tan ugu dambayso arrinta ku saabsan Jubbaland doorashadeeda, annaga waxaan aaminsanahay dadka Jubbaland in loo daayo sida dastuurku qababa inay ayagu samaystaan doorashooyinkooda. ayaga xaq u leh inay sameeyaan. dowladda dhexe wax yacni oo dastuurka arrintaa uu ka siinaya aniga ma ogiyo mana muuqato. marka waxaa loo baahan yahay in la daayo, ciday doonaan ha doortaan, ciday doonaan markaas ayagu maslaxadooda u arkaan. balse doorashaa dhacdayoo dhanna Axmed Madow baa la doortay, dhanna rag kale baa la doortay oo xidig uu ka mid yahay xildhibaankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. marka dawladdu sidaas bay go'aan uga gaarto, waxay soo saartay in dhammaan doorashooyinkii Kismaayo ka dhacay ay yihiin kuwa aysan waxba ka jirin. waxaan aaminsanahay haddii loo daayo dadka reer Jubbaland way ku filan yihiin inay xalistaan wixii khilaafaad oo dhexdooda ka jira. marka waxaan aaminsanahay inaan la gacantoogaanayn, dibna loo geysan, cid gaarana aan la taargetgaraynin. sida ii muuqata dowladdu yani go-aanka dowladda dhexe waxaa weeye si anigu aan aaminsanahay inay hor istaagaan in madaxweyne Axmed Madow la doorto madaxweyne uu noqdo. marka taasina sax maaha. waxa weeye alla daayo qofku haddii ay dadka shacabka reer Jubbaland ay u taalla haddii wax khaldameen khaladkooda inay saxdaan oo ay go-aan ka gaaraan. ma garan maxaa hortaagan baad is leedahay ama yay tahay cidda hortaagan xal laga gaaro khilaafka dowladda federaalka ah ama dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada? wallahi waxaan u arkaa waxaa salka arrintan ku haysaa fahamka laga kala qabo
federalismka waxa la yiraahdo oo qofba si u arko shaki la uu jiro ah qolada baa isleeda qolada kale waxa ay muursanaysaa awoodii shakigu inta badan wuxuu ka imaanaya ninka dowladda dhexe oo anagu khibrad barihin Soomaaliya nidaam federaal oo awood u qaybsan tahay mas'uuliyad u qaybsan tahay marka qofka arki jiray sida waxa ahaan jireen oo dowladda Maxamed Saad Barre wixii ka horeeyay oo arkaa dowlad goboleedyadu inay khalad ku socdaan oo awoodda dowladda ay qaadanayaan saxra baahidaasi waa fikir aad u gurcaan oo aad u khaldan weey marka ruuxa la khilaaf ku soo ku haya fakarka laga kala aaminsan yahay federalismka iyo awoodu sida u qaybsan yihiin waan gartay dhinaca kale u dambeyntii doorashooyinka guud ee Soomaaliya 2021 waxaa dad badan ay rajo xumo ka muujinayaan sida ay ku dhici karaan xisbiyada siyaasadeed ha ugu horeeyaan oo maanta ugu dambeysay shilay Muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed ay ku sheegeen inay walaac ka qabaan xaaladda dalka uu marayo ama dowladnimada dalka marka adiga markaad fiiriso sida ay wax ku socdaan madaxda hadda joogta waqtiga u harsan iyo waqtiga ay soo mareen maxaad ku tilmaami kartaa waxaa mas'ala madaxda inay waqti fursad badan ay dhuriyeen oo wadanka ay rabeen in la sameeyo doorasho sida hadda ay mar walba ay ku hadaaraan oo yiraahdaan in doorasho hal cod iyo hal qof la qabto waqtiga hadda waa ciriiri si loo qaban karo ma garan karo sababtoo ah waxaa ka horeeya in yani doorashadii ay dhacdo oo hal qof iyo hal cod wadankii uu xor yahay inuu xasiloon yahay in la sameeyo voter registration wixii la oran jiray codka maaragtay in register gareeyo dadka maxaa la yiraahdaa civic education la sameeyo waxaasoo dhan hadda tirokoob la sameeyo waxaasna hadda wax uu lagu qaban karo sanad gudihii aniga lama aha anigu maraynayo in doorasho hal cod iyo aniga ardayda gaaban in doorasho hal cod iyo hal qof ka dhici karto Soomaaliya maanta waxaan lahayd in laga suubin karo magaalooyinka amniga in laga suubiyo waa horumar weeye haddii ka darsan boqolkiiba 10 dalka ay ka dhici karto wax wanaagsan bay noqon laakiin ima muuqato aniga hawshaasi waqtigeedii la qaban lahaa iyo diyaargarowgeedii waa la soo dhaafay bay ila tahay midda kale doorashada waqtigeeda u qabtaa haddii hadda dowladdu dhexe ku fakarayso inay waqti ku darsato aniga arrintaas waxaa arkaa arrin khatarteeda leh dib badanna Soomaaliya keeni karta qofna wayna soo maray dalkan oo aan rabinin in uu waqti ku darsado ma aysan jirin laakiin waxaa xakameynaya waxay ahayd dastuurka waxaa xakameynaya waxay ahayd xeerka oo dhigtay waxaa xakameynaya waxay ahayd dowladnimada in loo turo marka waxaan aaminsanahay doorashada waqtigeeda in la qabto haddii hal cod iyo hal qof ay awood u leeyihiin ku qabtaan wala guud waa horumar bogaadina waa horumar la gaaray hasareeyaan haddii suurto geli karin wixii kale oo laga badan waa in la yeelo weeye